Garaashka Muuri ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa waxaa deegaansanaya in ka badan 100 qoys oo danyar ah waxayna tilmaameen in 30 sano ee la soo dhaafay ay deegaansanayeen halkaasi. Qoysaskan oo warbaahinta kula hadlay gudaha garaashka ayaa waxa ay tilmaameen in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in sifo sharci darro ah guryahaasi ay kula wareegaan. waxayna tilmaameen in ulaha guryaha ay deegaansanayaan iminka nin u dhashay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabi jiray Muuri. magacayga waxa la yiraahdaa horta garaad Cabdiqani Nuur Xasan waxaan ahay afayeenka dadkan degan deegaankan Muuri waxaan nahay oo halkaan idinla fadhiya guddigii Muuri waxaa degan ilaa 100 qoys waxaan maanta cabasho ka nahay laba qodobka koowaad waa cadaalad darrada dalka ka jirta Soomaaliya waxay ka dagaalantay waa cadaalad darro maantana waxaan dareemaynaa inay cadaalad darro ba'ani taagan tahay waxaan naga xiran muwaadin walaalkeena oo la yiraahdo Cabdi Saciid Nuur Faarax wuxuu xiran yahay 44 maalmood sifo sharciya kuma xira maxkamad lama saarin cid uu dambi ka galay malaha waxa loogu yimid gurigiisa ayadoo si aan munaasib ahayn looga kaxeeyay oo waliba been loo sheegay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo gudoomiyaha gobolka ayaa waxay ugu baaqeen inay ka dhaweeyaan ballanqaadkoodii ahaa in cadaaladda iyo garsoorka lagu kala baxayo. waxaan u sheedinaynaa kala cadaaladda madaxweynaha iyo gudoomiyaha baalka ra'iisul wasaare waxay yiraahdeen cadaaladda wax ka qabanayna war cadaaladdu hadda afgooyana weerartaan ma dadkii Muqdisho lagu dhacaya lagu qafaalanaya niman idinka hooseeyo idinku adikareeta ku soo saadeen ayaa ummadii say rabaan ka yeelay saacadaha soo socda maanta bishu waxaan u maleynayaa 13 ilaa 15 cadaaladdan weyna gacnaha ku raadsanayna dadku ayaga cadaalad isku noqonaya ilaahayna wuxuu u helinayaa cadaaladda in Allah yuxqul xaqa oo yudullu baadilan meesha jooga waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa odayaashu ka soo hadleen oo ahayd in cadaalad darro wax la yiraahdo iyo maroorsi iyo xadgudub bini'aadnimo iyo mid dhaqaale iyo mid aqli intaba nala ku weerarayo waxaan dacwo ka nahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir taliyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ee maxkamadda wuxuu nagu yiri ana ii xiran yahay mana sii deynayo ilaa aad ka baxdaan oo ka guurtaan meesha banaanka dhoobataan dagaalka anagu waxaan soo marnay xilli hore waxa la soo baandhay dad ba hadda ku cusub yahay nin walba waxa hore u qabtay anagu dawladda saka aan dawladnimo aadnay hadii uu qof walba soo qofo wixii gadaale waxa tahay cid xoog macnaha nagu maqoonaysa ma jirto sharci ma noo galnahay wixii wax dambi iyo kiis haysta iyo wacdayn haysta hanoo yimaadaan wabillahi tawfiiq Xasan Kaaye Somali News Muqdisho.